waxaan u baahannahay in payment methodyadan amba qaababkan lacagta loo bixiyo cashka jaga EVC pluska iyo walletka soo laabanaya hal magac inaan ka helno kadibna frequency-giisa aan sameyno excelka markii la isticmaalayay waxaan sameynaynaa shaqo dheer ayaan qabanaynay laakiin hadda howsha waa iska fududaanaysaa qaybta hoose hadaa fiirisid wuxuu keenayaa worksheet cusub oo loo yaqaano method of payment waana worksheetkii aan excelka ka soo qaadnay kii horaan soo abuurnay daatan ku qornay kaas hadda ma isticmaaloono worksheet cusub ayuu keenayaa meeshii excelkan ka soo qaadnay meeshan ayuu noogu dhigi doonaa haddii la rado waxaan samaynayaa meel kamid a istaagayaa si aan u sameyno tablekaas aada u fududaya minitabka markaa sameynaysid waxaa imaanaysaa amarkaan ay ku qoran tahay starter waana meesha howlaha ugu badan aan ka qabanayna starter iyo graafkan waa labada meel oo howsha ugu badan aan ka qaban doono marka waxaan imaanaynaa starter inta wax ka dambeeya waxaan usoo gudbaynaa tables waxaan usoo gudbaynaa qaybtan ay ku qoran tahay tally individual variable waxaan rabnaa inaan sameyno hal variable hal mar ayaan gujinayaa meeshan wuxuu soo qabanayaa variablekaaga magaciisa waxaa loo yaqaanaa payment method marka waa inaad soo gelisaa qaybta variableska marka hal mar ayaan gujinayaa kabacdina waxaad dooran kartaa select soo usoo galo amba double click ayaa siinaysaa bal markaan waa dooranayna select ayaan taabanayaa gudaha ayuu soo gelayaa waxa aad rabtid in lasoo saaro muxuu noqonayaa aniga markaan waxaan rabnaa in la sameeyo count tirin marka countigaasaan tigta ku dhaafayaa qaybtan percentagekana waa samayn doonaa hadii la ihahdo okay ayaan leeyahay hore meeshan waxaa ka imaanaya qaybtan session windowga tableka ayaa soo baxaya waana wixii aan dalbanay meeshan wuxuu sameynayaa payment methodka magacyadii oo ahay cash jack EVC wallet hal mar ayaan soo qabanayaa mid kastaba tiradiisa inta joor meesha kasoo muuqanaya waa lasoo tirinaya cashka 11 jagga 4 joor EVC pluska 18 joor walletka 11 markii la isku geeyo waa 44 waana inta hadayaan soo aragnay 44 aan ku tusay in uu yahay dhacdo amba currency inuu yahay marka 44 hore kasoo qabanaya daaqadan waxaa loo yaqaanaa session window waana meeshii jawaabta amba resultigii ay kasoo muuqanaysay oo markii aan table amba chart amba wax lamid aan sameynayno meeshan ayuu kasoo muuqanaya kan waxaan samayn karnaa hal mar ayaan gujinayaa fanax yar ayaa soo baxayso waxyaalo badan ayaa samayn kartaa hal mar ayaa gujinaysaa wordka u diri kartaa powerpointiga u diri kartaa waxaa u diri kartaa minitabka haddii aad ku haysatid space qayb amba workspace wax loo yaqaano riboraan ayaa u diri kartaa waa soo koobiyi kartaa sawiraan ayaa koobiyi kartaa waa daabaca kartaa haddii printaga uu kugu xiran yahay waana titiri kartaa sawirkan haddaa u baahan tahay bal waxaan u diraynaa waadhka sawirkan hal mar ayaan gujinayaa si uu waadhka inoogu geeyo wuxuu bilaabaya marka inuu sawirkan haddaan sameynay amba tablekan haddaan sameynay inuu waadhka si toos u geeyo xogaayar waadhka kala bixinaya waa kana hal mar ayaan gujinayaa waa qabanaysaa waa jiidaysaa xogaayar waa kala jiidi kartaa geeskan ayaan ka qabanaya waa kala jiidayaa si wixii si faahfaahsan aan u aragno wixii hadda aan diyaarinay waa kana cashkii jagii EVC pluska walletka iyo wax lamid ah sidaas lamid ah waxaa samayn kartaa waa soo koobiye kartaa qaybtan hoose haddii aan imaano sawirkan qaab koobi ahaan waan kusoo qaadi karnaa hal mar ayaan gujinayaa waxaan taabanayaa copy as a picture ayaan hal mar gujinayaa waa soo koobiyeynaynaa kabacdina inta ayaan imaanaynaa waxaan leenahay right click amba control V bast ayaan taabanaynaa si aan u dhigno hadda waa kana sawir ahaan usoo koobiyey kan waa sawir caadi ah sawir inuu waxay ogaanaysaa hal mar haddaan gujiyo waa qaban karnaa meesha rabnaan gei karnaa sawir ahaan ayaa usoo dhirayaa sawir ahaan ayaa usoo dhigay waxaan sameynayaa waxaan xirayaa waadhka dokumentigiisa uma baahni duna safe ayaan leeyahay waxaan kusoo laabanaynaa minitabkeena dhinaca bidix haddaa fiirsa navigatorka halka talaabaan qaadnay ayaa meeshan kasoo muuqanayo haddii aadan u baahnayn waa iska xiri kartaa session windowga qaybtan kore close ayaa taabanaysa wuu xirayaa waa kasoo baxday haddaa rabti inaad kusoo laabatid hal mar navigationka ayaa taabanaysaa hore ayaa kasoo saaraya oo weli waa haysataa wixii tallaabo a qaaday unless inaa meeshan aad ka xirtid maahane waana ku tusi doonaa dilacada qaabka aan uga xirayno waxaan rabaa hal tallaabo inaan kusii darno tablekana waxaan ku daraynaa columnka frequency-ga amba boqolliyada ayaan kusoo daraynaa waxaan sameynaynaa daatada meel kamid ayaan istaagaynaa waxaan imaanaynaa starter intaa wax ka dambeeya table ayaan soo gudbayaa tally individual variableka ayaan hal mar gujinayaa waa haysanaa variablekeena tallaabadii hadda ay qaadno ku dhagan yahay waxaan leenahay percent ayaan rabnaa inaan ku darno kabacdina okay ayaan taabanaynaa automatically wuxuu sameynayaa sawir labaad amba table labaad ayuu soo dhigayaa kii hore waa kana keliya waxaan haynay frequency-ga amba countiga kan labaad wuxuu noqonayaa marka percentage uu ku jiraa marka waxaan haysanaa qaababka lacagta loo bixiyey tiradooda iyo boqoleydooda haddii aan rabo inaan diro hal mar ayaan gujinayaa kadibna fanaxas yar ayaa sii gujinayaa markaan waxaan u diri karaa powerpointiga ayaan hal mar gujinaya wordkana u diri kartaa powerpointigana u diri kartaa wixii aad diyaarsi automatically hore u ka aadaya marka aad
diyaarinaysa sidoo kale buuggaaga thesis oo kale adoo ku anfacaya waxaad diyaarisay horey ayuu powerpointiga uu ka aadinayaa powerpointiga ayuu horey uga dirayaa marka waxay noqonaysaa powerpointiga u diro waa kana waa soo qabanaynaa waa soo jeedaynaa wixii dhammaan analysiska samaysay waa kana powerpointiga ayuu ku yaalaa meeshan ayaa kasii wadanaysaa hawshaada hawshii aad ayaa loo fududeeyey waxaan kusoo laabanayaa minitabka waxaa samayn kartaa sessionadan waa iska xiri kartaa haddaa u baahan tahay meeshan ayaa kasoo celinaysaa si toos ayaa arkaysaa midka kale haddii aan gujino waa arki kartaa haddii aad inta ka saaraysid right click ayaa taabanaysaa delayed ayaa leedahay delayed wuxuu keenayaa marka in wixii aad samaysay meesha uu ka baxo keliya hadda waxaan haynaa kii labaad oo ah asoo faahfaahsan oo payment methodkii frequencygii iyo percent frequencygii oo aan samaynay